السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساكي كل مهمة حقوق بصومي حرص دقمة وابري دقمة وابري أو كمية دقموين كواحد دارد البحر من ماذا بدل مجال مقدشو كلن كمان توحها كلن درجلين حولها نظافة يبيعوا علم تعاصبة وحكى سوق يبقى للدمان كوصل كدقمة معمول قبل كبنادر تلاقي عيدك إلى الديجان كهذا أمني كل الدول يدمان في شيء غيبه هذا كل الدول يكون رقم دقمة وابري كلك waxaa xoog lagu saaray sidii dardar loo gelin lahaa howlaha nadaafadeed ee degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir waxaana noqotay degmadii koobaad oo lagu soo bandhigo qorshe dhameystiran oo nadaafadda xoog lagu saari doono shirkadda Eco ee nadaafadda maamulka gobolka Banaadir oo iska kaashanaya nadaafadda degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir kadib markuu kulankaas dhamaaday maamulka gobolka Banaadir wuxuu kulan kale la qaatay bulshada qaybaheeda kala duwan ee gobolka degmadan Waaberi oo iyagana soo dhaweeyay qorshahan kala duwan ee nadaafadda iyo istaraatiijiyadda iyo qorshe hooleedka lagu howlgelinayo nadaafadda iyo bilic soo celinta caasimadda gudoomiyaha gobolka Banaadir sidoo kale maanta waxa uu ka hor cadeeyay maamulka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Waaberi in suuqa weyn ee Cali Boolay dib loogu soo celin doono gacanta maamulka taas oo ay soo dhaweeyeen bulshada qaybaheeda kala duwan halkaas ku dhaqan muujiyeen inay baahi xoog loo qabay in suuqaas uu mar labaad ku soo noqdo gacanta dawladda sidoo kale sida la socotaan horay qaybo kala duwan oo dan guud ahayd oo degmada Waaberi gacanta dawladda dib ugu soo noqotay gaar ahaan dawladda hoose haddii ay noqon lahayd 1 Oktoobar oo ahayd xaruntii waaxda oo dad shacab ay deganaayeen haddana dib ugu soo noqotay muxuu ahaa sidoo kale jirdiiraha lambar 4 ee ku taala qaybta Waaberi oo iyadana gacanta dawladda hoose dib loogu soo celiyay qorshahan iyo abaabulkan ay u jeedaan wuxuu muujinayaa dardargelinta qaybaha kala duwan dawladda hoose waxay u taagan tahay mar walba dhiirigelinta iyo gacan istaaga iyo garab istaaga shacabka ku dhaqan magaaladan ay mas'uulka ka tahay haddii ay noqon lahayd nadaafadooda iyo haddii ay noqon lahayd amnigooda shirkii maanta wuxuu daba socdaa shir muxuu ahaa degmada Daynil hore loogu qabtay oo loo bixiyay heshiiska Daynil oo ahaa in nadaafadda degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir ay iska kaashadaan dhammaan xoogagga wadaniyiinta kawnsalada degmada shirkadda nadaafadda Eco maamulka gobolka Banaadir waaxdiisa nadaafadda iyo bilic soo celinta iyo dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed ciddii ku xadgudubta shuruucdaas oo dhanna waxay mutoosan doontaa ganaaxyo kala duwan waxaana qaarkood la tiigsan doonaa sharciga ciddii ka soo bixi weysa waxaa dhammaanteen mas'uuliyadda naga saaran tahay bilicda iyo muxuu ahaa qurxinta caasimadda aan ku noolnahay si ay noqoto caasimad la jaan qaadi karta caasimadaha adduunka oo kale cid walba waxaa laga codsanayaa in gurigooda hortiisa ay nadiifiso ganacsiga waxaa laga codsanayaa hortooda inay nadiifiyaan haddii ay nadiifin waayaan ama haddii ay ka soo bixi waayaanna hay-adaha amniga iyo ciidanka ilaalada deegaanka oo garaaxa iyo u xil saaran intaba waxay amar ku qabaan xeer duq magaalaha ka soo baxay maanta laga bilaabo cid u dulqaadan karta bal nadaafadda caasimadan in lagu xadgudbo lana hor istaago saa la socoto hawshii hore maaha shaqadana waxaa hadda la daadejiyey ilaa heer degmo haddii ay noqon lahayd waaxda tabeelaha laanta ilaa dariska cid walba waxay leedahay shaqo loogu talagalay istaraatiijiyad guud oo muxuu ahaa laga qaatay qaabkii loo shaqeyn lahaa loo howlgari lahaa 17 degmee gobolka Banaadir la soo saaray waa laga gudbay xilliga hadalka iyo wacyigelinta iyo abaabulka hadda waxay taagan tahay xilliga actionka sidoo kale waxaa la dhameystiray xeerka maareynta qashinka caasimadda oo isagana ah istaraatiijiyadda waste managementiga iyadana sidoo kale way dhammeystirmeen marka waxaan rajaynayaa hadallo iyo shirar iyo kulamo badan waa laga soo galay arrintaa wixii hadda kadib bilowdana waxay bilaabatay actionka iyo shirkadda Eco waxay contract ku haystaa dhammaan 17 degmee gobolka Banaadir agabkii loogu talagalay nadaafadan inay qabataan oo u dhameystiran yahay sidoo kale waxaa sidoo kale waajibaad ka saaran yahay nadiifinta wadooyinka waaweyn waaxda nadaafadda ee dawladda hoose markay iskaashadaan ay isbiirsadaan gacan ay ka helaan shacabka waxaan aaminsanahay in shaqadan lagu guuleysan doono lagana bixi doono hadduu Ilaahay yiraahdo aad u mahadsantahay